dhammaaday dadka Soomaaliyeedna aad ka khasaarisay waxaa laga dhaxlayaa dal go'doonsan iyo dad gaajaysan waxaa gaajo ugu dhintay carruur Soomaaliyeed duleedka Muqdisho oo dhowr kiiloomitir u jira qasriga madaxtooyada halkaas oo gobolku ugu dhacayo maanta carruur kale oo gaajaysan waxaa sanadku cusub u dhashay ayadoo 80% dhalinyarada Soomaaliyeed shaqo la'aan yihiin 4 sano ee aad joogtay waxaa dhacay dhaqaale burbur baaxad weyn oo shacabka iyo ganacsatada Soomaaliyeed si baan u saameeyay 4 sano wax xisaab celin maadan samaynin dalka waa midka ugu musuqmaasuqa badan caalamka sidoo uu dhawaan hanti dhowrka shaaciyayna uu xafiiskaaga horkacaya goobaha lagu lunsaday hantida dadweynaha waxaad la wareegtay xilka ayadoo kororka dhaqaalaha iyo wax soo saarka gudaha uu marayo 4.8% sanadkii hadda kororka dhaqaalaha dalku waa negative 2.5% lacag ahaan waxay Soomaaliya luminaysaa 5.6 bilyan oo dollar oo koror dhaqaalaha sanadkii waa dhigbax dhaqaale oo barbar socda kan amni xumo ee dalka aad u horseeday 180 milyan oo dollar ayaa al-shabaab sanadkii baad uga qaadaa ganacsatada iyo shaqaalaha dawladda maanta 85% koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya waxa haysta al-shabaab waxaa dhacay 11166 weeraro argagixiso qaraxyo iyo dilal qorshaysan oo ay ku dhinteen dadkii ugu badnaa abid Muqdisho waxay aastay duqeydii gobol iyo guri Soomaaliyeed oo aysan geeridu gaarinna waa dhif 2.6 milyan oo qof ayaa ku barakacay gudaha dalka waxay ka barakaceen dagaalada u dhaxeeya qabiilada oo dib u soo noqday amni darrada argagixisada iyo masiibooyinka dabiiciga ah oo ay dawladdaadu ka macaashto 4 sano waxay ku dhamaanaysaa adigoo cid kula heshiisa iyo cid aad la heshiistahay aysan jirin haddaba su'aashu waxay tahay madaxweyne haddaad sii joogto dawladnimada